wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xafiiska wasaaradda warfaafinta ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale xafiisyo cusub oo lagu kordhin doono xafiiskii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Saaxil. munaasabadan lagu dhagax dhigayay xafiisyadaasi ayaa ugu horeyn waxaa hadal ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Saaxil Cabdisalaam Xariir Sheekh Cismaan oo ka waramay xafiiskan iyo ahmiyadda uu leeyahay wasaaradda warfaafinta ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba gobolka Saaxil. maanta runtii farxad weyn bay noqotay in wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta loo dhagax dhigo xafiiskeedii gobolka way tahay runtii taariikhda markii ugu horeysay wasaaraddu ay xafiis ku yeelato xarunta gobolka Saaxil ee Berbera si waxaan ugu mahadnaqayaa duqa magaalada iyo barasaabka oo runtii qayb weyn ka qaatay suurtagelinta in wasaaraddu halkan ku yeelato xafiiskan wax weyn ka tari doona runtii ugu horeyn hawlaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waxa kale wax weyn ka tari doona isku xirka saxaafadda gobolka iyo madaxa bannaan iyo sidoo kale runtii saxaafadda caalamiga oo iyadu qudheedu u baahan cid u khidmaysa markay booqasho ku yimaadaan gobolka Saaxil. xukuyaha degmada Berbera Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale duqa Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ee soo dhaweeyay dhismayaasha xafiisyadan saaka laga dhagax dhigay degmada Berbera. waynu ognahay wasaaraddu doorka ay kaga jirto qarankan waana garanaynaa TV-ga qaranka iyo idaacaddu dawladdu halka uu kaga jiro nabadgelyada iyo horumarka dalka guud ahaan gobolka Saaxilna waxa weeyaan halboolihii dalkan iyo wadnihii qaranka muhiim bay u ahayd in goor horeba aynu dhisno oo xafiisyo wasaaraddu leedahay ay jiraan. waxaan u dhagax dhigaynaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan xafiis ballaaran oo in badan ku taamaynay oo in badan aan sugaynay oo in badan aan jeclayn in loo dhiso wasaaradda maanta u dhagax dhigaynaa waxa kale oo dhagax dhigaynaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka oo iyadana aynu dhagax dhigi doono xafiis runtii maadaama shaqada wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinku ay tahay hawl ballaaran ay tahay waxaan ognahay dhagaxan markaynu dhigno in la bilaabi doono beritan insha allahu tacaala maalin dhowna aynu xariga ka jari doono furi doono isbeddelka dhaqandhaqaale ee degmadu aad buu korayaa muddooyinkii sanadihii u dambeeyay aad buu korayaa. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Ibraahim Ahmed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xafiiskan cusub ee maanta ay dhagax dhigeen isagoo sidoo kale halkaasi fariin u diray wasaaradda warfaafinta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. gelinayaa wasaaradda warfaafinta oo aan horena uga sugaynay inay FMT localka ahayd ee wacyigelinta magaaladan iyo gobolkan aanu u marin lahayn wixii loo gudbinayo aanu ka rajaynayna inay sida ugu dhaqso badan leh ay u keeni doonto ayaa iyadana dhismahan noo raacsan oo noo farxada. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cumar Said Cabdillaahi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xafiiskan maanta ay u dhagax dhigayaan wasaaraddaasi ay ku kordhinayaan xafiiskii ay hore u lahaayeen gaadiidkii oo kala duwan. xafiiskan wuxuu ka shaqayn doonaa dib u habaynta gaadiidkaas wixii ay u baahan yihiin hadday noqoto habaynta liisamadooda dadka inoo soo gudbaya ama darwalinta Itoobiya ka imanaya hadday noqoto shil inuu dhaco oo gaari Itoobiya ka yimid ama Soomaaliya ka yimid ama Djibouti ka yimid haddii uu shil waddanka gudihiisa ku geysto xafiiskii ka jawaabayay weeye waa runtii xafiis nagu cusub inaan hore u aqoonin oo waxa weeye marka dalku uu noqdo awal hore dekedeenu gudaha waddankeenu bay isticmaalaysaa laakiin markay gudubto ay wadamada landlocked-ka u gudubto waxa jira siyaabo loo wada shaqeeyo waxa jira protocols ay ku wada shaqeeyaan marka xafiiskan wuxuu noqon doonaa xafiis uu noqon doono corridor-ka Berbera corridor waxyaabuu soo kordhiyay kamida oo shaqo abuur cusub samayn doona. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Naasir Cumar Jaamac oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay ahmiyadda uu leeyahay xafiiskani dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay wasaaradda warfaafinta uga go'an tahay horumarinta xarumaha kala duwan ee gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay wasaaraddu yeelanayso. insha Allah qorshayaasha dhow ee yaala waxa kamid ah sida gudoomiyaha gobolku sheegay qarankuna baahi weyn u qabo in idaacaddii qaranka inaanu qaab FM dalkoo dhan ku gaarsiino meelaha aanu doorbidnay inaanu dhigno iyo meelaha goobtan waxaanu ugu dooranay amniga kamid ah waayo idaacaddu waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay meel la dhigo oo amniya sidoo kale
shaqooyinka wasaaradda warfaafinta u hayso qaranku way ka badan yihiin inta insha Allah halkan waxaanu ka dhisi doonaa studio-gii iyo howlkii shaqada lagu qaban lahaa magaalada Berbera wanoogna waa magaalo xeebeed taariikh fac weyn iyo aqoon durugsan baa ku duugan waxaan rajaynaynaa xafiiskan inuu soo bandhigi doono quruxda magaalada Berbera iyo taariikhda Berbera ay leedahay inaanu heli doono goob aynu ku wareysano mudankeena iyo dadka taariikhda Berbera wax ku inaanu helo goob aynu ku soo bandhigno wax qabadka xukuumadda iyo dadka kale haldoorka ee magaalada Berbera Ilaahay ku beeray iyo taariikhda taala iyadoo day qorshayaashii miisaaniyadii dawladda hore loo sameeyay haddana madaxweynaha qaranku kaalin weyn ka qaatay sidii xafiiskan maanta aanu dhagax beenay halkan uu noogu dhigmi lahayn ee dhagaxii hore loo dhigay looga dhabayn lahaa insha Allah halkan waxaan jeclaynaa hadda ballaaran madaxweynaha qaranka iyo wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha gudooga mahad celinayna suura geliyeen wana markii ugu horeysay wasaaradda warfaafinta dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay xafiis ku yeelato guud ahaanba gobolka Saaxil Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera